arkaya ciyaal yar yar oo alkoolistayaal cunuga darislaya ay kamid yihiin oo inta naaga soo qaawiyay oo alkool ka soo dhargay oo daroogo iyo music shidanaya oo ku haya lacagta ay aruuriyaan $50,000 waa sababtoo ah imika anagu 40,000 hayna ayaan dareenay dadka baahida qaba in aad u badan yihiin dad aad u badan yihiin waxaad maanta 24 hours isma markaas waxa ka dhigana 48 hours ma ka badina insha Allah sidoo kale waxaan sameeynaa inaan dadka ka badino dadka la shaqeyn doono ka badnaan doonaan meesha meelka weyn bay noqon doontaa lacagta inay nooga badataa waa taagid waa badina Soomaaliya dhan baan maraynaa wax ka jira ma jiro wax ka jirta ma jirto baaba been kala taga aad baan idin salaamayaa meel kastoo joogtaan iyo si walba oo aad noo daawanaysaan noona dhageysanaysaan magaciigu waa Ismaaciil Xasan Arax haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad channelkan soo booqanayso waxaan ka codsanaynaa si ixtiraam iyo sharaf ku dheehan tahay inaad meesha gaduudan oo subscribe ku qoran tahay aad cadaysatid gambareelkana aad furato saad u noqoto qofka ugu horeeyo ee u soo dhaco markasta oo aan boosti garayno video cusub waxaa taasi dheer inaad like buttonka noo taabato commentiga fikirkaada quruxda badanna aad nala wadaagto haddii aad doonaysa asxaabtaada kale inay barnaamijkan la socotaanna dabcan maxaad sugaysaa noo share gareen intaas wixii ka sokayso ee aad baan idin salaamayaa waa walaalkiin Arax oo bariyihii ugu dambeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa magaal iswaaye waqtiga kala geeyay waqtiga iyo ayaamahana kala geeyay laakiin I am back 100% insha Allah wixii markaasi cusub wixii macquul ah waan u arkay in bulshada Soomaalida ah ay wax ka faa'iideyso haddii ay comment ahaan lahayd oo fikir aragti ahaan lahayd haday ahaan lahayd waxaan u aragna markaasi in bulshadu ay wax u gudbinayso ama u tar ah inaan idin soo gudbino hadduu Ilaahay kala noqdo laakiin adiga dhiirigelintaada waxa ugu weyn ee aad ugu sameyn karto waa inaad dhiirigeliso si barnaamijyada aan kala soo saarno haddaba sida aad ku aragtay title-ka kore waxaan rabaa inaan comment ka bixiyo arrin ka dhacday TikTok-ga amaba social media oo bari maalmahan la isku haysto hadal hilmaan kuma jireen Dirisla Cabdi iyo Marish Beauty iyo gabadhan Saamiixo ka bixinaya comment aad ana uga xumaaday hadaba commentiga wuxuu ahaa sidaad u jeedaanbo wuxuu ku eedeeyay horta Dabacasayr waa oday Soomaaliyeed waan dhihi karno waa samafala Soomaaliyeed waxa markaati ah oo marnababo aan shaki ku jirin inuu yahay samafala Soomaaliyeed arrimihii ka dhacay dalka Mareykanka saad la socotid yarkii lagu dili jiray Ilaahay kuma darnaaday Sheekh Maxamuud oo mar dhow la dilay barnaamijyadaas aad buu ugu ololeynayay waxaan ku naqaanaa Dabacasayr inuu yahay samafale oday Soomaaliyeed oo samafala hasa ahaatee waxaa jirtay xilliyadii uu ku cusbaa aalada social media ninkan Idrisla Cabdi ah xogaa mar buu kaftamin jiray oo xogaa wax ka sheegi jiray odayga marka kaftankii buu si toos ah u qaatay marka wuxuu sheegay waxa horta ka warqabnaa Idrisla Cabdi iyo Marish iyo inay aruuriyeen sida ay noo sheegeen oo waliba aan idin kula wadaagayo videoga lacag gaaraysa $40,000 Mareykanka ah TikTok ay ka aruuriyeen ayna noo sheegeen qorshaha ugu weyn inuu yahay inay dadka masaakiinta ah ee Soomaalida ah ee Soomaaliya jiro abaaraha xaaladooda kala duwan yihiin in ay ku tabarucayaan waliba bisha Ramadaan sida aan afkooda ka hayno marka halkaas waxa ka cad Dirisla Cabdi iyo labadaas gabdhood qeyralaha siiyo waxay wadaan amal wanaagsan shaqo wanaagsan qofka sidiisana muslimka ah ee walaalka ah wixii wanaagsan oo wada waa lagu dhiirigeliyaa ma ka mudno in aflagaadaysid ama Ilaahay kuma darnaaday aad bulshada sawir qaldan ka gudbiso marka fikirka aan rabo inaan odayga u diro Dabacasar oo asaga latigiisa ah nin Soomaaliyeed oday Soomaaliyeed oo ixtiraamno sharaf iyo qadarin weyn u hayno in ay wanaagsan tahay markasto inaad wanaaga dhiirigeliso xumahana dadka aad ka reebto waxa kaliya ee adduunka intaad nooshahay ku harayo marka social media-han sidiisaba dadku waxay ugu kala jiraan noocyo kala duwan
horta waxaa jira wax la dhaho common interest oo social media YouTube-ka lagu jiro kow dadku dhan waxay raadinayaan dhaqaalo abuur inay meesha ka helaan ama dhaqaalo marka dhaqaalaha waa common interest dadka dhan ay raadinayeen laakiin haddana marka adigu waxay kugu xiran tahay adigoo social media ku jiro oo ilaahay kuma daranaade wax macquul oo gudbinayo dadkana u faa'iideynayo baad haddana dhaqaalo ku abuuri kartaa marka waxay ku xiran tahay hadba qaabka adiga usha u qaadato waxaan ku dhiirigelinayaa marka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan YouTuberada Soomaalida ah ee daawan doono haddii aysan hadda daawan xataa dhowr sano kadib laga yaabo inay daawadaan videogan wax walbo aad duubayso waa record was something oo weligiis meesha ku jiray marka adigana bini aadan aad tahay oo ma xaqiijin kartid intaad nolosha noolaanaysid ma garanayso qof og ma jiro xilliga uu dhimanayo marka waxaan ku wacdin lahaa ama maxaa la jiro u sheegi lahaa walaalaha Soomaalida YouTuberada ah qof walba hadaad aragtaan wanaagooda inaad wanaaga ku dhiirigelisaan wixii xumaan aan ilaahay ku darnadeen dadka iskala aan isaga sheegno maxaa la jiray aan xumaantan iska reebno wanaagana waxaan intaas muhiim ah hadii aniga meesha aan ku soo fariisto oo wax laba xabo eray oo macquul ah ka faa'iideysid that is the most important thing that's the reason as why I've come here marka aad baan idin salaamaya mar walba video inuu dheeraado fadlan hadii aad doonayso fikir qurux badan inaan nala wadaagto misana inuu ku jiro fikirkaada commentiga noogu reeb hadaad doonayso video noocan oo kale inaan aragto subscribe-ka ku dhufo calaamada gaduudan notification bell-kana furo hadii aad ka heshay video-gana like-ta noo saar hadii aad doonayso asxaabtaada inay ogaadaan barnaamijka noocan oo kale waan ka codsanaynaa inaad noo sharaxayso intaan tan iyo barnaamij noocan oo kale ku kulmi doona hadduu ilaahay ka raali noqdo wa saaxiibkiin arax oo idin leh amaana Allah waqtiga ha idin wanaado